dalada heer qaran ee dhalinyarada Somaliland maadaama muusimkan ama waqtigan aan ku jirnaa waqti xasaasi marka la yahay waxaan uga jeedaa waqti doorasho in daladu roolka ay ku lahayd danta guud ay ciyaarto. maxaad kula dardaarmay dadweynaha iyo musharaxiinta doorashada u soo diyaar garoobay? waxaan isla su'aasha weydiiyay Dr. Adna Aadan oo dadka reer Somaliland iyo beesha caalamkuba ku qadariyaan kaalinta firfircoon ay kaga jirto horumarka dalkan Jamhuuriyadda Somaliland. Bismillahir Rahmanir Rahiim. waxaan la hadlayaa dadweynaha reer Somaliland ee sharafta badan ee imka soo diyaar garoobay inay doorasho madaxweynaha hogaaminta dalka ay ku kala dooranayaan. waxaan doonayaa inaan dadweynaha la dardaarmo saddexdan inay doorashada u taagan aan la dardaarmo. dadweynaha waxaan kula dardaarmayaa doorashooyinku waa xalaal. dastuurka ayaa u fasaxay inay tartamaan. haddii aan dastuurkaas u ogolaadeen in si siman oo xalaal loo tartamo dimuqraadiyadan ay doonayno maynaan heleen. madax banaanida dalka madax banaan sansaanta lagu garto ay ka mid tahay doorashooyin xalaal inay galaan oo tartamaan madaxtinimada. waa sharafta dalku ku faano in horumar doorashooyin u galay si xalaal loogu tartamay loogu cod bixiyay codkii la tiriyay kii ugu codbatayna loo hambalyeeyay kii laga codbatayna ay u hambalyeeyeen kii tartanka helay. marka doorashada la galayo si nidaam leh dadku isu taagaa shacabku uu soo kalahaa leemankii meeshii doorashada codka ka bixinayay bay istaagaan dhibaato ma dhacdo si nidaam leh ay codkooda u bixiyaan. sidii la egbar rabaa sanadkana inaad u bixisaa. marka codadka la bixiyo ee sanadoodu soo xirooto haddana waa la tiriyaa waxa lagu furaa warqadaha ku jira codadkii la bixiyay ayaa muraaqibiintii iyo dadkii goobjoogayaasha ahaa hortooda ayaa lagu furaa oo kaas lagu tiriyaa. idin wax kuma guran karto idin wax kala bixi karto. marka la tiriyo ee xisaabta la isu geeyo ee saxaradaha Soomaaliya kala yimaadaan ba la soo ururiyo la tiriyo dabcan waa meel tartan lagu galay mid baa heli mid baa kala ka badan. waxa doonaya shicibweynu inay dinaan buuqin inay dinaan iska hor imanin. qaarna way farxayaan oo way boodayaan oo mushxaradayaan qaarna waa kuwa laga helay dabcan mid baa helaya mid waaya. waxa doonaya shicibweynu kii Somaliland jecel inaad buuqin kii Somaliland nacabna yaa shicibweynu inaga ururisaan oo inaga eegta iyadoo dibadaabiyo bixin iyadoo wax la isku tuurtuurin iyadoo wax la gubin iyadoo la istoogtoodan iyadoo ciidan ay loo dalban. way haday tahay ciidan iyo haday tahay shicibweyne Somaliland bay gidigan wadanahay. doorashadu qabiil male doorashadu qolan male doorashadu gobol male doorashadu Somaliland qof jecel oo mustaqbalkeena wanaagsan jecel ayaa u codeynaya. waxaan rajaynayaa inaanad inoo ilaalisaa 27 sanadood hay naga khasaaraynina 27 sanadood oo aynu ilaalinay sharafteena dowladnimadeena dalkeena iyo dadkiisa ku nool maalinta hay naga kala tuurina. ka inaga kala tuuraya Somaliland diid caqligu ha codeeyo. Somaliland intaas oo milyan oo qof baa ku nool intaas oo boqolaal oo kun oo qof ayaana waajib ay ku tahay in codka bixiyaan. haddii kuwa waajibka ay ku ahaydeen codka bixiyaan laga waayo codkoodii Somaliland taad sheegaysaa batiroodu ma jirta la oranaya. cadowga hay lagdina cadowga Somaliland ha lagdina. waxaan ka wada tartaamayaa odayaasha doorashada galayo ilaahay kii uu noo dooro ayaa noo soo bixi doona. kii ilaahay soo saarna madaxweyne wadankan ka noqon insha Allah dal nabada ayuu madaxweyne ka noqon.
dal aan qabiil ahayn buu madaxweyne ka noqon dal uu jecel yahay sida aanu dalkan u jecelnahay isagana uu jecel yahay ay madaxweyne u noqon dal aan la shaqayn doono ay madaxweyne u noqon dalkan inoo wada ilaaliya dadweyne wadankan inoo ilaaliya cadowga inaga ilaaliya cadowgu uu necel yahay horumarka Somaliland waxa la kanaxu nafta waa Somaliland doorashada way galaysaa nabad baan ku galaysaa waanay ku guuleysanaysaa mustaqbal wanaagsan na Somaliland waa u diyaar oo marbu yeelada mustaqbalka ilaahayna siiyay iyo horumarka ilaahayna siiyay ayaa deeqda ilaahay ayaa waxa lagu ka weyn wabillahi tawfiiq ilaahay hayna ilaaliyo ilaahayna hayna la arko والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.